Asalaamu calaykum daawadayaal. Ku soo dhawaada channelka Aragtida Maanta. Muuqaalkeena maanta waxaan ku sharaxaynaa film horror ah. Ciwaanka magaciisuna yahay Radius. Arrinta la yaabka leh ayaa ah in filmkan uu ku jiro nin qofkii fikirkiisa uu u sheegaaba ay maskaxdu qarxayso. Daawasho wacan. Filimka ayaa ku bilaabanaya Altar oo kaligiis goor xilli dambe ah fadhiya baar khamriga lagu cabo. Isagoo murugaysan ayaa waxaa soo galaya nin aad u faraxsan oo telefoon kula hadlayay saaxiibkiis. Isagoo leh waxaan hadda imid baarkii aan waqtiga ku wada qaadan jirnay. Wuxuuna ugu hambalyeeyay in ay guulo badan gaareen waliba si heer sare ah. Wuxuuna ugu dambeyn u sheegay in berri uu diyaaradda ku qoran yahay uuna soo duuli doono wuuna macsalaameeyay. ninkii baarka gadayay ayuuna ku yiri waxaad isugu kay dartaa dhowr nooc oo khamriga qaaliga ah waan dabaaldegayaa aad baan u faraxsanahay. Wuxuuna ku yiri adigana intoo kala shubo. ninkii baarka ayaana uga mahad celiyay kuna yiri aad baad u faraxsan tahay ee sidee wax u jiraan. ninka ayaa ugu jawaabay xalay waxaan xiriir u bandhigtay gabadha ugu shidan Atlanta wayna iga aqbashay. maantana waxaan ku guuleystay dhiid inta nolosheeda ka dhiman ii socon doona. cirkaasaan maraya aad baan u faraxsanahay. ninkii baarka ayaana ku yiri hambaliyo waad guuleysatay. wuxuuna ugu jawaabay mahadsanid aan cabno cabitaanka. markii uu qac ka siiyay khamrigii ayuu eegay baarka. wuxuuna yiri sanadahan ma imaanin baarkan. wuxuuna igu leeyahay xasuuso badan. 10 sano ka hor waxaan wiilkayga ugu horreeyay ku qaatay kursiga halkaas yaalla. wuxuu ninkii baarka ku yiri qorigaasi meesha sharaxaad miyuu u yaallaa. ninkii baarka ayaana ugu jawaabay maya ee waa xaqiiq. ninkii ayaana arkay Altar oo kaligiis meel iska fadhiya oo aad u murugsan. ninkii baarka ayuuna weydiiyay waxa ku dhacay. wuxuuna u sheegay in 3 maalin u dambeysay uu ninkani halkan imanayay uuna halkaas fadhiisanayay isagoon cidna la hadlayn. ninkii ayaa ku yiri cawada waa farxadayda waa in uu ila dabaaldegaa. wuxuuna u soo dhaqaaqay dhankiisa isagoo ku oranaya haye saaxiib ila cab koobkan cabitaanka ah. waxaana loo shubay koob cabitaana isagoo sigan ayuuna durbay hansaday. ninkii ayaana ku yiri waan u jeedaa waad murugsan tahay haddaad ogolaatay inaad ila cabto waa ii farxad. Altar ayaana soo baraarugay wuxuuna ku yiri waan ka xumahay xilli farxadeed kuma jiro waqti adag ayaan dhex marquursanahay. ninkii ayaa ugu jawaabay anigaba xaaladahaas waan soo maray waxaana looga bixi karaa dadaal iyo hawlkar sidaas ayaana uga baxay. Altar ayaa ugu jawaabay marxaladan ku jiro wax looga bixi kara ma lahan. ninkii ayaa ku yiri waan hubaa waad ka baxaysaa ee aan sharad galno. waxaad ii sheegaysaa dhibaatada ku haysata haddaan xalliyo waad ila dabaaldegaysaa haddaan xallin waayana aniga cabitaanka kaa bixinaya muddo isbuuc ah. Altar ayaa ogolaaday balse wuxuu u sheegay in uu wato 2 shuruudood. labada shuruudood ayaa kala ah in uusan mas'uul ka ahayn wixii ka yimaada iyo in koob cabitaana marka hore uu u shubo. waxaana loo shubay koob whisky ah. markii uu ku dhuftay ayuu u sheegay in ay jirto fikrad uu isaga kaliya dhageysan karo oo uu difaaceeda leeyahay. ninkii ayaana ku dhahay okay iwan. wuxuu u sheegay in xaaskiisu ay ahayd qofkii ugu horreeyay ee fikraddaas u dhinta. wuxuuna ku yiri maalin maalmaha ka mid ah ayaan hurdo ka soo kacay. waxaan raadiyay qalinkaygii markii aan waayay ayaan waxaan weydiiyay xaaskayga waxayna u sheegtay meesha uu ku jiro. kadib wuxuu u sheegay in markuu jiifay uu ku fikiray waxyaabo maskaxdiisa culays tiro badan saaray oo uu xamili waayay. naagtiisii ayaa weydiisay markii uu u sheegay ayay intay cabaar aamustay hadal ka soo bixi waayay. waxayna ugu dambeyn tiri waa mid fudud. waxaana qarxay madaxeeda waxaana ku firdhay dhiigii isagoo aad uga naxay. ninkii ayaa aamini waayay. ninkii baarka ayuuna ku yiri ma aaminta sheekadan. wuxuuna yiri ma aaminsani in qof madaxiisu iskaga qarxi karo sabab la'aan. Altar ayaa ku yiri waa xaqiiq. ciidamada CIA ayaa yaabay markii ay maqleen. ninkii ayaa yiri maxaa xigay. Altar oo sheekadii sii wada ayaa yiri markii ay xaaskaygu dhimatay ayaan waxaan wacay booliska waxayna igeeyeen qaybta dambi baarista iyagoo u maleeyay in aan xaaskayga dilay. waxay ii sheegay inaysan jirin wax caddayn ah oo muujinaysa in uu dilay naagtiisa. waxayna i weydiiyay sida wax u jiraan oo uu u sheego xaqiiqda iyo sida ay xaaskiisu ku dhimatay. Altar ayaana askarigii u sheegay fikirkiisa balse maxaa dhacay. askarigii ayaa inta uu dhowl cadeeyay madaxa ka qarxay. waxaana Altar meesha ka soo waday booliska waxaana loo gudbiyay xabsiga weyn. waxaana laga xiray gacmaha isagoo qol xabsiga ka mid ah ku jira ayaa waxaa ka soo waday ciidamada CIA waxaana loo keenay naag ka mid ah maxaabiista si loogu tijaabiyo. CIA ayaa mikrofoon kala hadlaysay waxaana lagu amray in uu u sheego fikirka naagtaas maxbuusadda ah. markii uu u sheegay iyadana madaxa ayaa qarxay. intaas ka bacdi waxaa loo keenay dhakhaatiir iyo saynis yahano si ay wax uga ogaadaan waxa uu ninkani sheegayo ilaa qofkii ugu dambeeyay oo u sheega uu madaxu ka qarxo. Altar ayaana ku yiri ma rabtaa inaad fikirka maqasho. wuxuuna ku jawaabay haa. Altar ayaa u sheegay inuusan mas'uuliyadeeda qaadaynin wixii ka yimaada. ninkii ayaa ku yiri okay aan dhahna waxaad sheegayso waa xaqiiq
sidee halkan ku timid oo dadka baarkan lagugu soo dhex daayay oo CIA-da ay kuu soo daayeen. wuxuu u sheegay in ay kor kala socdaan ayna garabka uga jirto aalad lagala soconayo dhaqdhaqaaqiisa uusan safri karin. ninkii ayaa ku qosay hadallada Altar wuxuuna ku yiri waxaad sheegayso oo dhan waxba kama jiraan, malaha khamriga ayaad iska badisay. isagoo ku qoslay ayuu ku yiri marka xigta sheeko macquul gal ah oo soconaysa la imow, tan way socon weyday. Altar ayaa u sheegay inuusan beenlow ahayn ee uu runta sheegayo. isagoo isku dayay inuu wax ka dhaadhiciyo ayuu soo bixiyay sawirka naagtiisa, balse ninkii ayaa u arkay nin waalan oo sarkhaansan wuxuu rabana ku hadlaya. ninkii baarka ayaa labadoodaba u sheegay in ay isdejiyaan. markii ay cabaar aamusnaayeen ayaa ninkii yiri bal inoo sheeg aan maqalnay fikirka. Altar ayaa uga digay in ay dhibaato uga imaan karto, wuxuuna u sheegay in uu gurigiisa iska aado farxadiisana uu la qaybsado xaaskiisa iyo carruurtiisa. balse ninkii ayaa ku adkaystay in uu maqlo waxa uu ninkani sheegayo. Altar ayaa ninkii baarka u sheegay in uu dhegaha qabsado si uusan u maqlin fikirkan khatarta gelin kara noloshiisa, balse isna wuu ku adkaystay inuu maqlo. haddana Altar ayaa codsaday in loo shubo koob cabitaana mar kale. waxa uuna u sheegay fikirkii. kolkii ay maqleen ayay cabaar aamusneen. Altar ayaana indhaha ka qabsaday isagoo ka baqaya in dhiigooda uu ku firdho. ninkii ayaa waxba iska bedelin. Altar ayaana xaqiiqsaday in uu adkaysan karo, waana uu farxay isagoo aad u qoslay. dhanka kale ninkii baarka ayay maskaxdiisa u adkaysan kari weyday fikirka Altar, waana ay qaraxday. ninkii ku dheerarayay in uu maqlo fikirka Altar ayaa aad u argagaxay, wuxuuna rumaysan waayay sida ninka maskaxdiisa ay u qaraxday. waxa uuna soo qaatay qori baarka yaalay, waxa uuna ku yiri waan ku dilayaa. Altar ayaa u sheegay in uusan dilin, taas beddelkeedana uu ka caawiyay in uu la raadiyo dadka u adkaysan kara fikirkiisa. balse ugu dambeyntii ninkii ayaa xabad madaxa iskaga dhuftay, sidaas ayuuna ku dhintay. wadayaal, muuqaalkeena maanta intaas ayuu noogu egyahay. fadlan kanaalka subscribe noo saar, like tii share tana ha naga ilaawin. mahadsanid.